Asalaamu calaykum saxaabta isku soo laabasho wanaagsan. Waxaan ku dhex jirnay koorseyni Odoo, waxaana ku dhex jirnay qaybtii purchase. So, maanta cashirka wuxuu ku saabsan yahay return item to a vendor. Sidee alaab badeeco loogu celiyaa vendorka? Waxaa yani dhacdada u dambeysay ay ahayd inaan bedel ka soo qaadanay laptop yani 5 xabo ah. يعني waxaan rabnaa 2 ka mid ah inaan iska celino. Qaabkii yacni vendor-kan ama yacni supplier-ka oo yacni dadka anaga wax ka soo qaadana, sidee ugu celi karnaa alaab? Marka waxaan maraynaa 2 step. Step-ka koowaad wuxuu yahay ina aan celino product-gii asal ahaantiisa. Product-gii aa soo qaaday inaad celisid. So, si aad product-ga u celisid, waxaad ka celin doontaa inventory app-ka. Inventory app-ka aad tagi doontaa maadaama ay badeecada ay ku kaydsan tahay inventory-ga. Waxaad dhihi doontaa operations-ka yacni operations-ka tagi doontaa. Then waxaad dhihi doontaa transfer then receipts waxyaabaha ku soo galay. Numberka boonada oo iyo taariikhda oo yacni alaabtaas aa ku dhufan doontaa. Alaabtaas markaa ku dhufatid then click waxaad leedahay return. Marka return markaad dhahdid waxaa yacni sheegi doontaa xaddiga ama alaabta aa celin doontid. Yacni ka soo qaad haddana waxaan rabnaa inaan celino 2 shay. Marka meesha waxaad gelin doontaa 2 shay. Wuxuu kaa celin doonaa 2 shay uu ka bixin doonaa inventory-ga. Marka 2daas shay warehouse out ay noqon doonaan oo store-ka waa laga saari doonaa. So marka step-ka labaad wuxuu noqonaa in aan sameyno refund. Yani si alaabta loo celiyo waxaa la sameynaa refund inaad lacagtii soo celisid maadaama lacagtii ay deyn ahayd ama lacagtii haddaa caadi ahaan cash u bixisid waxaad tagi doontaa accounting app then vendor-ka ku dhufan doontaa refund aad dhihi doontaa new aad dhihi doontaa alaabtii iyo lacagtii iyo sheyga aad soo celinaysid price-kiisa iyo account-iga yani intuu ahaa aad soo celin doontaa. Marka tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan waxaan rabnaa inaan celino Bedel Electronics waxaan rabnaa inaan celino 2 xabo HP Core i7 ah. So, each mid walba cost-giisa wuxuu ahaa $350 oo price-ka lagu soo gaday ah. So, total-kooda waxay noqon doonaan $700. So, marka $700 haddaan rabno inaan celino yacni waxaan ka celin doonaa qaybta vendor-kan ka celin doonaa, refund-ka ka celin doonaa. So, transaction-kan wuxuu saameyn doonaa inventory-ga iyo account payable-ka. Account payable-ka oo deynta lagu leeyahay way yaraan doontaa. Inventory-gana alaabtii lacagtii yani nagu badatay way ka yaraan doontaa asna. So, marka cashirka ku xiga aan gali doono aan sharxi doono waxaa waaye payment for liabilities. Qaabkee deynta loo bixiyaa. Tusaale ahaan waxaan rabnaa $5,000 inaan siino Bedel Electronics kana siina akoonka Salaam Bank. So, deynay nagu leeyihiin waaye. Yani waxaan rabnaa inay deyntooda aan siino. Waxaan tagi doonaa accounting app then vendor aa tagi doonaa then payments aa tagi doonaa new payment aa abuuri doonaa. Marka vendor-ka alaabta lacagta kugu leeyahay dooran doontaa lacagtii hadday tahay receive haddaa ka helaysid iyo haddaad diraysid akoonka aad ka diraysid then confirm qaabkaas ayaa ku bixin doontaa lacagta. Marka I hope inaad fahamtay marka aan sii sameyno marka soo bax. So, yacni payments-na liability-gana wuxuu saameyn doonaa markaad deyn bixisid Salaam Bank account wuu yaraan doonaa account payable-kana wuu yaraan doonaa ogow. Saas aan sameyno. Marka waxaa imaadaa qaybta accounting app-ka yacni wax koodi hore waxaan fiirinaynaa trial balance-gana. Yani meesha ugu dambeysay trial balance-ga uu marayay waxay ahayd 136,240. Marka waa ujeedaa trial balance-gini cashirkii hore iyo kan isku fiiri. Step koowaad aan marayna wuxuu yahay inaan tagno inventory app. Then aan tagno operations then receipt aan tagno. Alaabihin aan qabanay. Hadda alaabtan waa ujeedaa meeshan Bedel Electronics warehouse in waa alaabta wayna soo gashay 5 xabo ah helnay oo HP laptop Core i7. Waxaan rabnaa inaan celinaa rabnaa. Mideeda kale purchasing intaad tagtid boonadii caadiga ahayd oo yacni boona number-kii waa ka celin kartaa. Boona number intaad tagtid meesha receipt ay ku dhufantahay intaad ku dhufatid return waad dhihi kartaa oo alaabta meesha waa ka celin kartaa. Inventory intaad tagtid yacni ayadana waa ka celin kartaa. Marka 2daas meelood bilka iyo vendor-ka waa labadaba waa inaad ka celisid waay. Then refund-kana waa yacni meesha yacni refund-kii lacagta aad ka celin lahayd waay. So, waxaad tagtaa inventory app then operation then receipt. Marka boona number-ka aan dooranayna boona number-ka waa kana oo warehouse in then return aan ku dhufan doonaa.
meeqa xabaa celineyna. Marka meeshas waxaa gelin doontaa laba shay aa celin doonaa. Waxaa kaloo dhigi kartaa return all waa dhigi kartaa oo alaabta meesha ku jirto o dhan waa celin kartaa. Marka return dheh, so alaabtaas hadda way ka baxday meesha. Then waxaa lagaa rabaa inaad validation ku sameysid oo hubisid inuu yahay sheygan warehouse out validate, then alaabta hadda way baxday. hadda itemkii waxaa kasoo celinay qaybta inventoryga item waxaana u soo celinay haddaan kusoo laabano foldeeda meesha waxaa arkaysaa receptiga inuu two yahay oo yani wuxuu tusayaa warehouse out yani inaan laba shay aadif laba shay in iska celin oo warehouse out so marka meeshaan waxaa dhici kartaa 5 xabaan dalbanay 3 xabaa helnay 5 aa dalacay marka waa dalacaadaan waa inaan 5 ka dhignaa 2 xabo waa inaan iska reebno meeshaan fadhalka ah oo halkan ku qoran tahay waa inaan ka dhignaa 2 waa inaan soo saa 2 uga dhigno meeshan يعني بالka dalaco leeyahay waxaad tagtaa meesha orderska adjust orderska sheygaana waiting bill waiting billkan la sugayo meeshaas labadii xabo waa celinaynay inaa billkooda dalacnaan labadii shay oo ah 7 so marka waxaa leenahay billka dooro qofaa markaad aad kusoo laabatid request documentation yani boonadii aan kusoo laabano meesha hadda ujeedaa laba way isleeyihiin fenderka laba waa accepting laba 5 aan dalbanay 1 5 ah 3 aan helnay 3 baa billkooda labada waa celin dadka markay tahay balansiga rabaadkeeda waxaa rabnaa inventoryga inuu yaraado inuu yaraado ujeedaa inventory wax ka go'aysan qolka hore waxaa ku baday waxaa ku bayban soo garaa marka alaaba celinayo sawirka hadda waxaa tegaynaa waxaa u gabagalaynaa customer يعني ama liability dealing so deciding يعني shaqada inta nagala waxaa tegaynaa waxaa tegaynaa لأن يمين تصفر minus غير minus يمين الإلكترون صار أمانتي وحواي شام so كون بدحي وحواي سلام بني لو هتاسو في سلام بني يعني بجرتو فموفكم أي جلاس so حاب ما يبي حكاية خلك خلنا نكون فيلم حسيسها بالعلم قعدت وقريب سين دبي قعدت باب طبعًا وظيفة كمان سنة تسلم لي الأوديشن الكل صح waxaa aragtaa akoonka salaama waxaad ku gooday 5 kun deynteena waxaa ka go'ayso 5 kun haday waxay ahayd 7 boqol aad gooday iyo 5 kun waxaad isticmaashay lacag balance iyana wayso marka maanta intaas ku saabsan yahay waa ku mahadsantahay.